shan sano ka hor baa madaxweyne farmaajo meesha lagu doortay 5 sano iyo xoogaa baa hadda sii mareynaa sanadkii xaad baa la galay isla meeshii uu doorashada ku qaban lahaa oo ama xil ku wareejin lahaa ama ugu soo qaban lahaa ayaa ka dhacay ay shabaab ka dhex ciyaarayaan marka taas waxay caddaynaysaa weakness xagga amniga dowladda ha noqoto marka dowladdu kala socoto marka isaga iyo saaxiibka isaga u taala way dowladdu wasaaruhuna waa koox gooni kuwana koox gooni oo aad arkaysid waxaad arkaysaa markay socdaan laftooda dhoolatus meesha wax qaban lahaayeen gaadiidka lagu la dagaalamo diyaaradaha ay meelaha la soconayaan muhiimaduna laba wiil baa maanta laba wiil oo shabaab ka mid ah ayaa waxay qabsadeen xaradii dhinacan Marina Gate saacado haystay saacado boqol ciidan wax lagu sheegay sida qoran gaashaanlu wuxuu sheegay Cabdifataax waa sax 5 meel kalena waxaan ku arkay 6 idaacadda VOC طبعا waan dhageysanay 5 ajaaniba marka waa Amazon iyo ciidamo ajaanib oo tababaray waliba dawladda ka caawinay dhinaca qaraxyada ciidamada طبعا they did fantastic ciidanka Soomaaliya ku faantamaya waana shakhsi soo Soomaaliyeed baan ugu faraxsan yahay khaladka ay dawladdu geystay iyo Amazon oo tayadaray ciidanka Soomaaliya wax ma dhibeyso laana waxa badbaadiyay Amazon iyo beesha caalamka waxa badbaadiyay maanta waxay ahayd sida la wada og yahayba haram cad aanu mucaarad baan waan u qirayaa haram cad haday sahan ahaan lahayn waa u dhamaanad hada waa laba wiil ciidada Amazon iyo kuwii Mareykanka iyo wixii tababareen meesha joogay labada wiil marka waxay cadeynaysaa weakness xirmaad oo imaan doonaa maxay ka dhigan tahay in 5 sano ka hor meesha lagu doortay maxamed Abdullaahi Farmaajo maanta ay weeraraan al-shabaab waxay ka dhigan tahay shortcut haddaan soo gaabiyo fashil dhinaca amniga oo madaxweynaha number 1 u ahayd aywaat waxaana lagu mashquulay dhoolatus iyo amaanis iyo caay inkastoo ciidanku dhisay ayaa lagu mashquulay iyo iska celi ra'iisul wasaaraha meeshii awoodda la saari lahaa in doorashada la qabto la soo saaro cadaalad ay hebel kursi boob intii lagu jiray ay shabaab ka faa'iideystay طبعا waxay ka dhigan tahay in number 1 principalki mabaadi'dii madaxweyne Farmaajo markii uu is sharaxayay aan ugu orodnay oo ku wada amaanay inuu ku fashilmay dhinaca amniga afyeenka aan iraahday gudoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka Banaadir oo bartiisa Facebook-ga qoraal ku soo qoray waxa uu sheegay in weerarkan lagu qaaday garoonka diyaaradaha aadan cadda inay tahay arrimo siyaasadeed waana mas'uulkii u horeeyay arintaasi ka hadla oo xil ka haya dawladda waliba gaar ahaan amniga gobolka Banaadir markaasi mas'uulka ah arrimahaasi maxaa la isdhihi karaa gudoomiye ku-xigeenka طبعا oo mar isku magacaabay wasiirka amniga gobolka Banaadir saaxiibkay Cali Yare waan ku taageersanay maanta hore mucaarad ku ah hadalku yiri waxay ahayd gacmo shisheeye ayaa ka dambeeya siyaasadda waan isku haysan karnaa laakiin arrintaa uu ku saxsanaa wuxuu waa dalkanagii markay amni noqoto hal dhinac baa jiraa hadalku soo qoray waan akhriyay طبعا waana markii ugu horeysay commentigan sheegay maanta waan kugu taageersanay waa runtii dalal waxa jira inaan hor u socno diidan shalay ayaa waxa la saxeexay waa طبعا waa ogtii ninka soo tabiyay shalay waxa la saxeynay Soomaaliya lagu wareejiyay raali kama ahan marka inta anagu aan isku mashquulsanayno ayaga laftooda inay fududeeyaan baan u aaminsan shakhsiyan markaas ma doonayaan inay baxaan dalal baan raali ka ahayn soo qoray gudoomiye ku-xigeenka amniga Cali Yare wuxuu ku saxsay 100% mana ahan mucaaradnimada iyo muxaafidnimada xaqiiqada inay waafajin markaas dalkan leenahay waa waxun baa la kala ridanayaa ma inaan isla tarmaan dalal ha noqoto imaaraad ha noqoto dalalkan Ugandis dalalkan raali kama ahan in anagu nabad helno inaan weligeena aysan ku jiray doon u jirtaa waan ku mandate-ka Amazon loo kordhiyay ayaa sabab u ahaa leedahay 100% kaas maalinkii horena marka because waxay sameyn karaan laftoodu because waxyaalo badan waxa jirta shacabkana la wadaag karin xalbada shacabkana la wadaag karin baa laakiin Amazon maxaa lagu eedeeyaa Amazon intaan la soo gaarin meesha hadda wax ka dhaceen intaan Amazon la soo gaarin ka hor waxa ilaaliyay ciidamada Soomaaliyeed oo inay ka tirsanaan jecel hay'adda NISA so Amazon hadiiba jigboontii kuwad la soo dhaafa iyagu war iyo caal uma hayaan soo lama dhihi kara ila dadkii waa Soomaali waana ii sheeg Ismaaciil aad baad mahadsantahay hadduu qofku soo qaato oo warqada safaaradan ka shaqeeya ciidanka Soomaaliyeed ma qabsan karaan hadduu soo qaato waxaan ahay la taliyaasha ciidamada Amazon
ciidamada Soomaaliya ma qabsan karaan ina anagu isku mashquul ma ahan markan oo kale xaqiiqadu waxay tahay qof interest ugu jirto mucaarad iyo muxaafid inuu sii daayo ma jirto shakhsiyan waxaan qirayaa anigoo mucaarad ah inay ka dambeeyaan beesha caalamka iyo ciidamada dalku joogaan waxayna siin karaan idea xataa ayaga laftooda dhibi kara laakiin waxaaba ceeb ah in laba wiil iska celin ween oo markii dambana ciidamadan haram cad ay badbaadiyeen marka inaan isku mashquulo marka kale inaan isku mashquulo ma xaqada wayna baarra Amazon raali kama ahan beesha caalamka raali kama ahan inaan anagu amniga naga la wareegno hadduu doon farmaajo soo noqdo markay gaadho ajnabi waana hal dhinac jiraan anagu anu ma raba ninkan wuu fashilmay number 1 baan kamid ah number 1 in la doortana ma qira kuma talanayo dadkii waxaan waad ogtay dadkii uu ololeynayo si wada walba umar ugu dukanoobaan amniga madaxweyne farmaajo ku fashilmay laakiin ma ahan inaan dhaano ciidamada Soomaaliya baa dhibay dawladda Soomaaliya ku soo tageen waxaasna ayaga bixiyay maanta aan dhageysanayay wargeysiga dhar ku soo qoreen ciidankii Soomaaliya oo badbaadiyay nabad sugidii sirdoonkii warmayna soo sidaanin ajaanibtii durba waxay keeneen waxa laga yaabaa in ciidamada Soomaaliyeed khaladka markii aan aqbal ma ahan anigu waxaan aaminsanahay xaalada dhaxdeeda hadii wax la fududeeyo laga fududeeyo weligoodna fududeeyaan weligoodna ayagu ma rabaan in anagu heshiino in anagu isku mashquulay doonayaan arintaas waa in si fiican loo fahmaa dadka wax analyze garanayo suxufiyiintana waa inay shacabka la wadaagaan waxaan waa dalkanagi ciidamadaas lacagta la siinay 1200 oo la siinayo ninkan maanta badbaadiyay oo wiilashan yar yar oo haram cad iyo kuwan kale oo booliska meelaha fadhiyo militariga ay ahayd in la siiyo kuwaasana mudnaa أنا waxaan qabaana shakhsi ahaan maanta waan soo qoray meel badan waan ka sheegay inta ay baxayaan inayna ku ciiboobin waa in loo sameeyaa ciidamo ilaaliya Amazon waayo laba wiil baa saacado horteeda ajaanibna ka dilay ayagana wuxuu dhimay marka saas darteedana wax lagu qabsanay waxbaan ilaalinayna inay dhaas ka dhaafay inay anaga wax noo qabtaan iska dhaafay waa in ayaga amnigooda la sugaa waxaana aaminsanahay shacabka mucaaradka iyo muxaafadka dhammaan musharaxiinta meelaha ka qeynay waxaan u dirayaa iyo dawladaba intaan isku mashquuleena annaga qarannimadana waan ka mashquulin dadnimadana dadkan inay baxaan mar rabaan waxay sameynayaan justification ay ku sii joogan trap walbay sameynayaan wax walbay fududeynayaan haday rabaan bacdigeedna waxa dib loo dhigayaa ciidanka Soomaaliyeed in laga qaado cunaqabataynta in laga qaado hub ma soo iibsan karaan mana rabna xataa inaan heshiino waxaan kale waa dulinimo waa in awood la saaraa meesha dibku naga jiro in awood la saaraa xilligan la taagan yahay hadii ay dhacdo in lagu wareejiyo ciidamada Soomaaliyeed rajinta laga qabaa in ciidamada Soomaaliyeed lagu wareejin kara amniga dalka arintaas aniga Soomaaliyeed dhan oo xaqiijinaya shabaab waxa la dagaalamay ciidanka Soomaaliyeed waxa ay doorku ugu tagaa la dagaalamay ciidanka Soomaaliyeed shabaab waxay aaminsan yihiin inay Amazon ka adag yihiin halkaas ficilso shabaab waxay aaminsan yihiin aamineenna inay ka adag yihiin markaas waad ogeed inay ugu tageen gudaha Kenya ciidamadii mandabay Amerikaanka ay u dhaxgaleen okay Kenya waxay ku dhacwad ogeed ceel cad waxay ku dhacay Amazon xarooda lagu galay laba unug baa uu galay marka ciidamadan jooga iskama celin karaan ciidamadan Amazon isku wada duub soo dil isu geeyay xataa meelaha TV ay ka hadlaan boqolaal baa laga dilaa dad baa laga hayaa ayagoo hadlaya waad aragtay marmalaha soo gudbiyay shaabay soo gudbiyeen marka waxaan aaminsanahay ciidanka Soomaaliyeed hadii la siiyo hub hadii la siiyo lacagta la siinayo ajaanibta inay iska celin karaan shabaab yana aaminsanay ama anaga ba heshiinayna because waxaan nahay dad sooni badan ma jirto markii xaqiiqda laga hadla xildhibaanada iyo wasiirada iyo dadka siyaasiyiinta xitaa mucaaradka xitaa ah marka la fiiriyo waxyaabaha lagu goodiyo waxay ka mid tahay in Amazon ay soo kala dhaxgasho Amazon amniga maaragtay loo dhig waxyaabaha ugu badan oo loo ololeynayay ka mid tahay xilligii extensionka oo Maxamed Abdullaahi Farmaajo oo xildhibaanada ay ugu dareen soo lama dhihi kara dhanka kale marka la fiiriyo Amazon habaxdana waa la leeyahay waa qiiro Japan runta markay tagtana waxa la leeyahay amnigi waa laga hadlayaa siyaasiyiinta iyo dadka mas'uuliyiinta markaas ahaa shacabka Soomaaliyeed waxa uu sheegayaa aan waxaan ahayn diblomaasi aad u og dakanaha reer galbeedku ay maleegayaan waana arintii lagu sameeyay Afgaan oo ciidamadoodu iska celin waayeen ciidamada Soomaaliyeed hankii laga jabiyay ma hadii la yiraahdo iskama celin karaan anagoo og maanta ay u dambeeysa in ciidamadii Amazon iyo kuwii reer galbeedka wax tababarayay inay ciidamadanadii ay maanta badbaadiyeen inaan maanta aan taaganahay markasto ay dagaal galaan ciidanka Soomaaliyeed iska difaacaan anagoo og waliba meel kasta ugu tagaan haddaan dhahno marka dadna dhahaya ciidamada Soomaaliyeed iskuma fillo hub lama siin karo taasi waxa weeye hanka ciidanka Soomaaliyeed isku filaanshaha ay ka hor imaanaysaa waana tii lagu hanjabiyay
ciidamada Afghanistan Taliban sidii loo lahaan kooda ka jaban isbuuc bay ka farxasheen shacabka Soomaaliyeed ciidankiisu wuu isku filan yahay haddii la siiyo agabka u baahan yahay hadday Amisom wax qabanaysa maanta ugu dambeeyo laba wiil ay iska qaban laayeen maadaama laba wiil ay dhowr saacadood iska qaban waayeen xaradii ugu weyneed ay dhaxdooda kubad ka ciyaarayeen maahan beesha caalamku inay nagu ciyaarto mana ahan wax walba ka rumaysano mana ahan aytiinka naga in ay ka sugno haddaan wax kale ka ruwayno waxa jirta xataa mas'ala if you can't beat join them hadday aaminsan yihiin inaan iska celin karin de hanoo fasaxan aan la heshiinay haddayna la heshiinaynin ayna iska celin karin sababta ay ku qaadanayaan $1,200 anigu ma fahmayo ciidanka Soomaaliyeedna $200 ku qaadanayo that's unacceptable waa gartay aan u soo laabana haddii teendhada afsoon agteeda maanta weerar uu ka dhacay doorashadan ay tahay meesha loo diyaariyey oo la doonayay in lagu qabto kalsoonida lagu qaban kara intee la eg tahay horta waaniga yidhi madaxweynaha Farmaajo halkaas wuu ku fashilmay waxaana dan ugu jirta anaga inaan waqtigan doorashada isdhaafino oo ayna sabab ka dhigan lafteeda in la sii jeediyo in doorashadii baa la qaban waayay dambi noo saaro Soomaaliya baa fududeysay madaxweyne Farmaajo laftiisu waxay dan ugu jirtaa tartanka cid soo bixaysa lama garanaye in hal dhinac isaga iyo wasaaruhu ay mid ka noqdaan oo amniga loo daayay wasaaraha lana hadda amnigii qof uu hoos imaado lama garanayo waxay sida saxda waxay aad in hoos imaado fulinta laakiin de waxaad arkaysaa dhoolatus wasaaraha lagu wareejiyay Soomaaliya amnigii doorashooyinka laakiin waa af ilaa hadda af aniga adigu waan qarinaynaa shacabka Soomaaliyeed uu garanayaa ciidamadii isagoon ogeyn baa la diray waxaa caddaynaya ciidanka ugu dambeeya loo diray balweyne loo diray wasiirka gaashaandhigga ma ogeen wasiirka amniga ma ogeen ciidamo badan oo sidoo kale meelo badan loo diray oo garanaysa ayaa ka mid ah marka waxaa muhiim ah arrimaha amniga in loo daayo ra-iisul wasaaraha uu marka suurtageliyo inay doorashadu meesha ka dhacdo waxaana qabaana in hal waji laga yeesho Amisom inay naga baxdo say nooga baxdana waa in awoodda la saaro in amniga ra-iisul wasaaraha qaybta fulinta ay wada shaqeyso taasaan qabaa shakhsiyan marka waxa leedahay amniga doorasho wali amniga afwaaye waxba lagu wareejiyo ficil loo wareejiyo taas Allah way gabagabadii barnaamijka soo soo gaarnay waxay fariinta aad bulshada Soomaaliyeed iyo madaxda aad kula taran lahayd oo aad dir lahayd maanta ugu dambayso waan aragnaa madaxda Soomaaliyeed kuwa imaanayaba Amisom inay shabaab iska celinayeen maanta waan aragnaa inay laba wiil iska celin waayeen beesha caalamka oo halkaas safaarado degan ciidamadu joogeen iyo Amisom inay iska celiyeen waan aragnaa waa in caalamka loo sheegaa inaan la isku haleyn karin kartida tababarka Amisom inaan la isku haleyn karin ciidanka Soomaaliyeed oo soo badbaadiyay Amisom xoreeyayna xalane waa in amniga lagu wareejiyaa waa in madaxda sare oo haysta wasaaraha iyo madaxweynuhu ay mid ka noqdaan arintan doorashada inay ka dhacdo teendhadii madaxweyne Farmaajo 5 sano ka hor lagu doortay say uga dhici lahayd in hore loo qaadaa waana ka xumay dhibkii soo gaaray ciidamada Soomaaliyeed waxaan rajeynayaa inuu Ilaahay dhibka naga saaro oo doorashada nabad noogu dhacdo dalkuna nabad noo noqdo